Hi asxaabta welcome maanta sheekada filimkeena waxay ku saabsan tahay gabadhan lagu magacaabo Lin Bohui waxayna jecel xadaaf u qabtaa wiilka ay yaraantooda saaxiib ahaayeen Sean jecelkiisa iyo ku hanaatana wax walba diyaar ay u tahay inay u samayso laakiin nasiib darro jecelkeeda waa jecel hal dhinac ah oo iyada kaliya ay jecel asiga ma jecla maadaama sanado badan ay ka soo wareegatay markay jeclaatay ilaa hadda way jeceshahay markay ay maqasho isbitaalka oo ma ku galnay isla markii waxay bilaabaysaa inay isbitaalka ku soo booqato maalmaha kamid ah isbitaalka u socotay waxay la kulmaysaa gabadhan Zero la yiraahdo ay yaraantooda saaxiib ahaa jireen laakiin waqti xaadirkan ay isla socon qof walba adduunyadeeda raacatay isla markaasna waxay bilaabayaan inay iswareystaan Zero ayaan ogaanaysan ninkii Sean lahaa inuu isbitaal yaalo markaas ay Lin waxay weydiinaysaa inay xiriir ka dhaxeeyo in kale halka Lin ay u jawaabayso waqti xaadirkan wax xiriir ka dhaxeeyo maadaama uu reer lacag ka soo jeedana ay isku level ahayn xiriirkeenu macquul ahayn markaas Lin way macsalaamaysaa iyadoo isbitaalka u sii cararayso balse Zero waxay damacsan tahay khiyaano weyn inay degto maadaama ay la socoto ninkan Sean la yiraahdo kambanigisa inuu kor ku kacay dhaqaale badan sameeyo waxay kadib halkan Lin oo isbitaalka joogto kadibna iska ooynayso iyadoo ku calaacalaysa inay marnaba u dulqaadan karin Sean oo xaaladan ku jiro waxayna u rajeynaysaa si dhaqso leh inuu ku soo caafimaado abaar kadib waxaan arkaynaa Sean oo indhaha soo kala qaadayo kadibna soo naaxayo isla markaasna wuxuu arkaa Zero oo hortiisa fadhido maadaama Lin markay baxday kadib ay timid isla markaasna wuxuu bilaabay inuu su'aal weydiiyo asagoo ku dhahay wax yar ka hor waxaan maqlay qof calaacalaysa oo ooynayso iyana rajeynaysa inaan soo caafimaad aadna ugu xun dhibaatada ay haysto hadaba qofkaas qofku ahaa ma adiga ay ahayd Zero markaan fursad weyn meeshan ka heshay ayaa wax ku leedahay waa aniga oo inta koomada ku jirto dham aniga ay ka taxajiri jiray iyadoo qorsheeda iyo ninkan inay khiyaanto kadibna isjeclaysiiso oo jacayl bayna ku abuurtay maadaama qorshe weyn ay leedahay maalmaha kamid ah Lin oo isbitaalka u soo socota ay waxay arkaysaa Sean iyo Zero oo gacmaha is haysta kadibna wadada socdo arrinkan wuxuu u keenay niyad jab iyo in qalbigeeda dhaawac maadaama ninkan ay aad u taxadiraysay si fududna gabadhan gadaasheeda gacanta ugu dhigtay kadibna iska soo baxaysaa waxayna maqlaysaa gadaasheeda in qofka wacaayo isla markay u jeesatana waa miyaan yarka laayo miyaan sidoo kale ilaa yaraantiisa ayuu gabadhan jeclaa Lin wala socotaa ninkan inuu jecel yahay isla markaasna waxay bilaabaysaa inay runta u sheegto kuna tira waa ogahay in ay jeceshahay laakiin aniga kuma jecli maxaa yeelay qof kale ayaan jeclahay isla markaas asigoo la kaftamay ku leeyahay ii sheeg waxaan sameeyay si ay u jeclaato sheekadoodana waxaa maqlay Sean iyo Zero isla markaas Zero intay soo boodayay wuxuu ku leeyahay aniga Sean waa wada soconaa sidoo kale Lin Sean ay jeclaan jirtay markaas ayaa Sean ku dhahay run miyaa arrintaasi Lin balse Lin waxay u jawaabaysaa arrinkaas mar hore ayuu ahaa balse miyaan isla markii intuu soo boodo u sheegay in labadooda wada socdaan xiriirkoodana mar dhow u bilowday halka Lin ay u malayso inuu kaftamayo ninkani balse isla markii Zero ayaa intuu soo booday ku leedahay aad baan kugu dhiirigelinay inaan jecelkaada iska hilmaanto adigu murugoyn isla markiina jecelka aad samaysatay Lin oo markaan wareersan wax meesha ka socday ayaa iska baxayso iyadoo waxba ku jawaabin abaar kadib Lin message ay soo dhacay waxaan u soo diray Sean oo cabsan wuxuuna ka codsanayaa inay u timaado balse isla markii u timaado ninkan maadaama uu aad u cabsan isla markii uu ku qamaamaya wuuna ka kor dhacaya subaxdii xigta harkayna iyaga soo kacay waxayna arkaysaa inay jifto sariirtii Sean balse isla markii qolka waxa soo galayo Zero iyo Sean hooyadii isla markiina Zero waxay bilaabaysaa inay ku xanaaqdo Sean kadibna ku dhahdo waa khiyaantay wuxuuna bilaabayaa inuu isku dayo inuu dajiyo maadaama Zero fursad weyn meesha ay ka aragtay isla markii waxay bilaabaysaa inay ku handado inay xiriirkooda jarayso inay aamini kartana oo ahayn Sean waqti xaadirkan aad ay u xanaaqsan wuxuuna bilaabayaa inuu eedda dhammaan dush ka saaro Lin balse Lin waxay isku dayaysaa inay xaaladda u jiiso laakiin markada ma maqlayo kadib uu iska baxayaa asigoo doonaya inuu ceersado Zero isla markaasna waxay bilaabaysaa inay raaligelin ka bixiso iyadoo raaligelinaysa hooyadiis una sheegaysa inay wax qalad ayaan doonin inay samayso kaliya halkan u timid inay ninka caawiso balse maamada ayaa ku dhahaysa waxba ka walwalin sirta meesha ka jirta ay banaanka soo dhigaysa sheekadan dhab qofka ka dambeeysan waa maamada qorshaheedu wuxuu yahay inay labadan isku soo dhaweyso halka wiilkeeda Sean ay la doonin Zero inuu xiriir la sii sameeyo waxaana ku leedahay waan la socdaa gabadheedii inaa ilaa yaraanteedii wiilkii jecleed gabar wacan aad tahay laakiin Zero gabar fiican ma ahan kuma wacna wiilkii inay xiriir la samayso khiyaano weyn ayay wiilkii ku wada ay ku leedahay ayadoo isla markii tusinaysa sawir ay ka soo qaadido ninka la saaxiib la ah waxayna u sheegaysaa Zero inay wiilkeeda u ceersanayso kaliya lacagtiisa balse idinka ay ka warqabto arrinkaasi waxay sidoo kale u sheegaysaa inay soo ogaatay in gabadhan ur leedahay ninka kale ayna doonayso inay u qarayso wiilkeeda iyadoo qorshaheedu yahay inay cunugaas kula wareegto hantida balse Lin ayaa ku dhahaysa xiriirka waa inuu labada dhinac ka imaado isla markaas ay hooyadu bilaabaysa inay kala dhacaysiiso gabadhani waxayna ku leedahay kaliya hal sano waa inaad wiilkay is aroostaan waxaan ku tusayaa sanadkaas gudihiisa inuu kugu jeclaado kadibna way ka ogolaanaysa isla markaas Sean markii loo sheegay arrinkii wuxuu bilaabayaa Lin inuu warar ku soo qaado una sheego inay dhanka hooyadiis ka soo martay isla markaasna ay naqad doonto guurkii ugu xumaa abid ay soo maro nolosheedan ciqaab uu ku naqad doono asigoo uu dhigay digniin maalintii xigta waxaa inay dharka aroos soo qaadatay kadibna meesha imaanayso isla markaas Sean oo yaaban ayaa iska aqbalaya guurkii uu aroosaya maalmihii xigta Sean wuxuu bilaabay gabadhan inuu aad u bahdilo kana dhigo waxa ameelka soo qaad lahayn asigoo xataa la soconaya gabdho badan oo la soo jirin si uu nolosheeda ciriir u galiyo kana masiirsiiyo maalmaha kamid ah intuu umaado wuxuu ku leeyahay maama ayaa doonaysa inay xogeeyadii naqato ayna keen saac laga bilaabo xogeeyadii ayaa tahay tan oo ka dhigan inay Lin iyo Sean meel walba isla socod doonaan guriga iyo xitaa shaqada maamada arrinka waxay u goleedahay inay isku soo dhaweyso labadooda isfahmaan balse maalmaha kamid ah ayaa qof macaamiil wuxuu bilaabayaa inuu gabadhan faduuliyo uu isku dayo jirkeeda inuu ku xadgudbo isla markiina way bilaabaysaa inay iska celiso balse intuu arrinka ka carooday ayuu dhulka ku tuuraya markaas ayaa Sean imaanaya wuxuuna bilaabayaa inuu difaaco inkastoo gabadhan uu jecelin haddana waajib ayaa saaran maadaama xaaskiisa ay tahay mana u dulqaadan karo xaaskiisa in lagu xadgudbo hortiisa isla habeenkaas lamaanihii Sean hooyadiis ayaa soo booqanayso waxayna bilaabaysaa inay wareysato xaaladooda isla markaasna waxay u keenaysaa laba tigid ayay doonayso markaan inay waqti fiican isla soo qaataan balse Sean ayaa arrinkan ka hormaanaya mana doonaya gabadhan inuu meeshaas u raaco kadib tigidkiisa ayuu qaadanayaa
asagoo u sheegay inay kaligeed timaado isla markaas waxaan arkaynaa Lin oo goobta imaanayso maskaradana wadato sidoo kale wiil kale oo maskarada wata ayaa imaanaya kadibna bilaabay inuu la ciyaaro wiilkana cid kale maahan ee Miyaan weeyaan waana isla wiilkii jeclaa wuxuu la socdaa qofkan la ciyaaraya inay tahay Lin isla markaas wuxuu bilaabay inuu su'aal weydiiyo asagoo dhahay dadka qaar dadkii jecel yihiin way iska sugaan xataa iyagoo la socda inaynan helaynin haddaba maxaa sabab arrinkaasi balse Lin ayaa u jawaabay kaliya inay eegto markaas ay sheekada waxa ka qasay Sean isla markiina wuxuu bilaabay inuu Lin gadaal hab ka siiyo wuxuuna ku leeyahay waa ka welwelsanaa intay jirta maalmahan oo dhan Sean gabadhan uu hab siinayo wuxuu u malayaa zero balse masgaradada markuu ka siibo arko inay Lin tahay isla markaas wuxuu bilaabay inuu raali geliyo haddaba ma garanayo sababta uu raali gelinayo isla markaas wuxuu bilaabay inuu iska soo baxo xabaar kadib waxaan arkaynaa Lin oo soo cararayso oo imaan Sean oo meel fadhiyo kadibna iska cabayo isla markaasna wuxuu bilaabay inay u sheegto inay dareensatay inuu aad ugu xun yahay maadaama uu arkin zero waxaan halkan ka ogaanaynaa weli ninkan inuu zero dareen u qabo balse uu siran yahay isla markaas ay waxay ka tusinaysaa inay gabadhan zero tahay isla markaana wuxuu bilaabay inuu u soo dhawaado asigoo isku daya inuu shumeeyo markuu ogaado inay ahayn zero dib ayuu u degayaa isla maalintii xigta zero ayaa guriga u imaanayso kadibna waxay u imaanaysaa Lin oo meesha fadhido waxayna sheegaysaa inay gurigan u soo wareegto waqtigan waxay ka bilowdo inay doonayso guriga inay ku noolaato ugu dambeynna Sean ay isguursan doonaan marka uu furo iyada isla markaasna Lin waa isku dhex yaacaysaa iyadoo caraysan ayay guriga iska baxaysaa maalintii xigta gabadhii shaqaalada ayaa waxay u sheegaysaa Sean inay Lin habeenkii imaanin ayna guriga soo hoyanin isla markaas ay zero u sheegayaan uu soo laaban doono maadaama uu doonayo Lin inuu meelaha ka soo raadiyo Sean Lin ma jecla laakiin waajibaadka xaskiis ka saaran darteed ayuu raadinayaa bas abaarka bacdi Lin ayaa soo laabanaysa isla markaana asigoo caraysan ayuu weydiinayaa sabab meeshii jirta habeenkii iyo sababta guriga uu soo laaban weysay balse Lin ayaa ugu jawaabaysa maxaa ka gal hadaba adigu ma doonaysid in xiriir lahaano maxaa igu weydiinaysaa sababta uu soo naqad diiday isla markaas sawir ayuu tusayaa iyada iyo Miyaan laga qaaday wuxuuna ku leeyahay adiga waxaa sidee ninka ula socotaa ma iska sugtay ilaa ka kala tagna ayuu ku leeyahay isla markaas ayuu sheegaysaa inay ahayd dhalashadeeda Miyaan xafladda uu sameeyay Sean markaa masirkiisa uu saayida maadaama Miyaan ay u amaanayso dooddoodana si daba dheeraanaysa balse zero ayaa sheekada soo galayso isla markaas ay Lin waxay u sheegaysaa inay isdejiso meelahan ay u bixi maadaama xam ka imaan karto xantaasoo Sean sharaftiisa iyo kambrigiisa dhaawacayso Lin waqti xaadirka sheekadan way u adkaysan laadahay xanaaqada foorta ayuu marayaa waxayna ku leedahay waqti xaadirkan waa inaan kala tagnaa qof walbana wadadiisa u raacaa maalintii xigta waxaan arkaynaa Sean hooyadiisa oo u imaanaysa zero isla markaasna sirteeda ay fashalayso waxayna u sheegaysaa qorshaheeda qarsoon inay og tahay ayadoo tusinaysa sawirada laga qaaday iyadii saaxiibkeeda waxayna u digaysaa wiilkeeda inay ku soo laabato ayadana isla markii ku amaraysa in guriga iska baxdo dib dambana ay ugu soo laabanin zero waqti xaadirkan waxay ka cabsay arrinkan inuu Sean ogaado isla markiina way kala tuuraysaa duqdii Sean hooyadiisna madaxa ayay meel ku dhufsanaysaa kadibna way soo xaysaa isla markaas ay goobta waxa soo gaarayo Lin waxayna arkay duqdii meel tale u dhiig baxayso isla markaasna zero ay ku qaylinaysaa waxayna ku leedahay ambalaas waa inaan wacdaa balse zero arrinka iska dhigatiraysa qorshaheeduna wuxuu yahay duqda in dhiig baxda kadibna ay u geeriyoto isla markaas sheekada ay bedelaysa derbiga ay madax ku dhufsanaysa zero ayadoo markaa uu ekaysiinayso in Lin waxaan oo dhan ka dambeysay qorshaheeduna uu hirgelayaa maadaama Sean uu waqti xum u yimid isla markiina wuxuu bilaabay inuu ku eedeeyo inay hooyadiis dishay iyo zeroba Lin waqti xaadirkan isku dhex yaacsan tahay inay yaabanta ninka wax ka qaldan halka asagana meeshiisa uu ku sii wata hadaladii xanafta lahaa xadgudubtana ku ah gabadha masaakiinta waqti xaadirkan Sean hooyadiis iyo zero isbitaalka ayaa la geeyay Sino markaa waxaan arkaynaa idoo soo naaxayso balse Sean hooyadiis kooma ay galaysaa maadaama si xun madaxa ay ugu dhaawacantay isla maalinta xigta Lin caloosha ayaa laga qabanaya kadibna isbitaalka ayaa loola soo cararayaa isla markaasna waxaa loo sheegaya inay uur leedahay waxayna ogaanaysaa inay Sean uur leedahay waxayna go'aansanaysaa waqti xaadirkan inay kala tegin iyada iyo Sean maadaama uu aabbo u yahay cunuga dhali doonto zero arrinka markay maqasho isla markii waxay la kulmaysaa saaxiibkeeda isla markaasna waxay u sheegaysaa inay ka walwalsan tahay inuu Sean aqbalo Lin maadaama waqti xaadirkan uur u leedahay baryahan dambe ay ka dareemaysaa inuu ka tacdirayo Lin una ka walwalsan yahay labada bahal waxay go'aansanayaan in Lin meesha ka saaraan kana takhlusan si wadadooda ugu banayso Lin waqti xaadirkan waxay bilaabaysaa inay waqti dheer la qaadato Miyaan maadaama qof kaliya ka taxdiraya asiga uu yahay habeenada kamid iyagoo isla socda soo nacashayeen ayaa wadada nin agtooda maray borsada iska tuuraya si uu Miyaan ugu mashquuliyo Miyaan isla markii borsada intuu qabtay inuu ka daba cararaya intuu ku maqnaa ayaa weerarka lagu soo qaadaya Lin nin ayaana soo weeraraya isla markiina uu afduubaya cid kale maahan waa zero saaxiibkeeda wuxuuna isku dayayaa inuu ciijo ku diro waqti xaadirkani balse waxaa arkaynaa Lin oo kasoo dhacaysa isbitaalka maadaama Miyaan uu badbaadiyay ninkiina uu la dagaalamay asiga laftiisa intuu dagaal ku jiran dhaawac uu soo gaaray sidoo kale asigana isbitaalka ayuu yaalaa Lin waqti xaadirkan sheekada waa ka daba tagtay waxayna doonaysaa markaan inay wax iska celiso ayadoo go'aansanayso zero inay ka aarsato isla maalintii xigta isbitaalka banaankiisa ay Sean kula kulmaysaa iyo zero isla markaasna zero ay ku leedahay hadaba ma la yaabantahay aan nool inay aragto isla habeenkaas Lin ay qorshe ay degaysaa nin ay lacag siinaysaa si uu soo weeraro Sean ayadoo waqti xaadirkan iska dhigaysa inay badbaadinayso Sean kan dhigaysa ninkan inuu soo dirto zero balse waxaa la yaab ku noqonaysa inuu isla markii aaminayo maadaama aqoon dheeri uu leeyahay zero wax walba in ka suurtaaban uu yahay maalintii xigta Sean waxaa la kulmay zero saaxiibkeeda wuxuuna u sheegay asigii zero inay xiriir ka dhaxeeyo balse Sean ma aaminayo asagoo weydiinaya wax cadeen inuu haystay in kale isla markaas ay u daraya cod uu ka duubay codkaasi ku cadeynayso inay hooyadiis iyada kala turtay isbitaalkan ay dhigtay Linna isku dayday inay disho sidoo kale isbitaalka qofku xanaanay jiray iyada iska dhigtay badalkeed Lin ahayd Sean waqti xaadirka waag ayaa ku baryayo wuxuu sameeyay ma garanayo
isla markaasna zero intuu u maaday wuxuu leeyahay guriga iga bax wuxuuna sidoo kale halka ka ogaaday heerkii uu gaarsiisan yahay jacaylka ay u qabto Lynn iyo sidii ugu taxadiri jirtay markaan Sean wuxuu xaqsaday dib weyn inuu ka galay saaxiibtiisa Lynn wuxuuna go'aansanaya inuu soo raadiyo kadibna uu raali geliyo balse dhaxay wuxuu kula kulmayaa Miyaan ayaan u sheegay inuu Lynn ka leexdo maadaama waqti xadarka laantiisa ay farxad haysato balse ugu dambeyn wala kulmayaa laakiin Lynn sheekadiisu way ka soo horjeesanaysaa waxayna ku leedahay qof sidaan dham u xun ma doonayo cunuga dhalay inuu ila koriyo sida darteed sorry saaxiib ugu dambeyn Lynn waxay halkan ka garanaysaa qofka u roon waxayna aqbalaysaa jacaylka uu qabo Miyaan iyadoo markaan doonaysa inay mustaqbalka isla wadaagaan mustaqbal fiican dhistaan halka Sean oo kala garay waay waxa la yiraahdaa jacaylka dhabta ah oo dareemayo qofka u roon iyo qofka u rooneen haddaba Lynn go'aan ka qaadatay ma kula habboon yahay inay isaga tagto Sean wixii ra'yi ka qabta halkan comment inuu reeb dramadeena halkan ayuu ku eg tahay muuqaalka laagta laga hilmaamay haddaan ugu cusubtahay nagu soo biro subscribe noo saar gambalelkana furo waa inoo mar kale ii sheekooyin aad ka xiiso badan kuwaani nabadeey